barnaamij ballaaran ay ka soo qayb galeen qaar ka mid ah dadka Soomaaliyeed ayaa wuxuu ka dhacay wadanka Holland gaar ahaan magaalada Den Haag. barnaamijkan ayaa waxaa lagu qabtay afafka hore ee safaaradda South Africa ay ku leedahay magaalada Den Haag waxaana soo abaabulay dalada EFSAN ee ka dhisan wadankan. dadka Soomaaliyeed ee ka soo qayb galay mudaharaadkan ayaa waxay aad uga xun yihiin dilkii loo geystay wiilkii Soomaaliyeed ee lagu dilay magaalada Elizabeth iyagoo ugu baaqay dawladda South Africa inay shacabka Soomaaliyeed amaankooda dhowraan. dhanka kale gudoomiye ku-xigeenka dalada EFSAN Mr. Cabdikariin Maxamuud iyo waliba afhayeenka dalada EFSAN Gariiqaan Maxamed Cilmi ayaa waxay u gudbiyeen warqad ka turjumaysa sida ay uga xun yihiin dhibka Soomaalida South Africa lagu hayo. dadka barnaamijkan ka soo qayb galay hadaladooda ayaa waxa ka mid ahaa waxa kaloo aan fariin u farayaa madaxweynaha iyo dawladdiisa dhammaan dadka mas'uuliyiinta loo dhiibay inay arrintan ka hadlaan ka dhiidhiyaan sida aanu safaaradaha wax ugu dhiibaynay maanta Janiska inta uga faa'iideeyaan. galabta waxaan la xiriirnay safaaradda South Africa ee wadankan Holland ala kulanay safiirkii iyo laba qof u qaabilsan arrimaha siyaasadda waxayna naga qaabileen warqadii aan u geynay oo matalaysay shucuurtii dadkeeni Soomaaliyeed. waxaan aad uga xunnahay dhibaatada ku dhacaysa shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan. dhibkii ka dhacay iyo xumaatadii ka dhacday Koonfur Afrika shacabka Soomaaliyeed waa ka burweysan yihiin tiiraan hayso. waan ka xunnahay waxa lagu sameeyay wiilkii Soomaaliyeed ee dhagaxa lagu dilay xanuunka iyo sida aan la naxin loo dilay aad baan ugu gubanaynaa. waa ka xumahay waxa lagu sameeyay shacabkeena xoogooda xalaasha maalanaya Koonfur Afrika joogna aad baa uga xunnahay dhibaatadii dhacday waana ka gubanaynaa. waxaan ka codsanaynaa dawladda Koonfur Afrika inay nimankii dhibkaas geystay sharciga la keeno. dooni mayno dilka Soomaalida lagu hayo wadanka South Africa. dooni mayno dilka Soomaalida lagu hayo wadanka South Africa. maanta waxa meesha isku imaanay in dareenkeena muujino dhibaatada meesha ka dhacday iyo walaalka Soomaalida dhagax lagu dilay oo dad South African ay dileen. waxa u baahanahay dawladda Soomaaliya iyo dawladda South Africa arrintan inay wax ka qabato. xuquuq aadami ma aha in dadka oo dhibkan dadku u geysanayeen in la daba galo in maxkamadda la soo hor istaago in la xukumo. barnaamijkan ayaa wuxuu ka mid noqonayaa barnaamijyo isdaba joog ah oo ka dhacaya dunida dacaladeeda. Cabdixakiin Cabdi Ismaaciil TV-ga qaranka Soomaaliyeed Hague Holland.